puntland amniga guud ahaan dalka isaga mas'uulka dhinaca xuduudaha iyo kuwa loo soo qaada marka arrintan ka hadalnay markii dad badan oo ka hadlaya laakiin dadka muwaadiniinta ummadda Soomaaliyeed hadday isku qaataan kuwa dowladda jira ee diyaasbarada ama meelaha ku maqan hadday iyagu isku qaataan ismidii inay yihiin iyagu aan dalkooda ka maqnayn toddoba sano waa nasiib darro أنا waxaan ku hadlaynaa waxa weeye ama dowladda dirista ha noqdeen ama ha noqdeen dadka Soomaaliyeed ama ha noqdeen kuwa ka soo gudbaya dadka ama ha noqdeen dadka weeye dadka aan u leenahay inay sharci ku soo galaan dalka sharcigu markuu ka dhamaadana ay ka baxaan kuwaan ku hadlaynaa waxa weeye xuduudaha dalka diyaaradu yirgiyada xuduudahana waa laga soo galaa waxyaalo badan baa jira inaan dalka kantaroolno amnigiisa iyo caafimaadkiisa iyo wixiisa waxaan xaq u leenahay waana waxaan nolol idmabay waan gartay marka wasiir amarkan ma waxa uu ku socdaa kaliya fiisaha la xiriira ama dalku galka dadka ajaanibta oo kaliya dhanka xuduudaha soo galaya ama ka imaanaya dad kasta aan ahay Soomaali oo imaanaysa dalka وعافمادكooda la baaray wadamada deriska ha noqdeen kuwa kale imaanaya cid kasta imaanaysa oo aan ahayn xuduudaha soo gelaya ama cidka ka soo galeen ama dhulka ka soo galeen soo inay sharci ku soo galaan dalka maaha awood intee la eegayay dawladdu marka wasiir u leedahay ajaanibta xuduudaha ka soo galaya Puntland inay ay sharcigi loogu talagalay ay siiso ama ay sharci ku soo galaan dawladdu sida ay u kantarooleyso iyo sida xuduudaha ugu filaanayso dawladdu way taallaa dawladdu waxay shaacisay cilaamisay dalkeeda inay xuduudaheeda ku filaan doonto إذا سمع الله أنا سوق الكريم أيوة وزارة عامل شاعسي كاسبة لكل غيرين لكل غيرين الناطقة ومدى الصومالية بالنبو في ساعة كسوة بلان ذلك بودلان واحد يرد بودلان الكوة وهذا شيء ماها hadalkii aad hore u sheegtay ahaa in fiisaha lagu soo galo Puntland oo ajaanibta adigu markaasi aad ula jeeday sida aad sheegtay Soomaalidu siyaabo kale qaarkood u fasireen oo waxay sheegeen in Soomaalida kale xataa la leeyahay fiisa ayay ku soo galayaan arintaas maxaad ka leedahay arintaas waa ka jawaabay markii la raado dib u soo celisay waan maqlayay xataa kuwa Soomaaliya oo diyaasbara oo meelaha ka imaanayo leh awal dalka waxaan isla tagtay hadda waan isku toogay mar hadii la soo heeyay waa qofka Soomaaliga مثلا ليه كده سنة شوية بعدين يا سنين يا إنت كنا يا سنين ما عرفت سا فك الله قال يا ولي بكل العليا أول دت حدودا شوي قليا على عكا كسر قلين على دوكا كسر قلين بينات بطلان يبصرد أمني هو كنترول السدل كده شرع الدواء بكسر كشلا وعمل كذا بنسوي marka wasiir Puntland iyadoo dalmiya erigaas ay ku soo celisay ma dalka Soomaaliya u jeedaa mase Puntland dalmiya Soomaaliya ma Puntland ma dawladda Puntland anaga nala yiraahdo ama waxaan damaanad qaadi karnaa waa dawladda Soomaaliya federaalka ee dalka Soomaaliya waa isku mid xuduudaha hadda waa la kala sheegtay meel walba cid baa u talifa ama waxaan ku hadlaynaa waxa weeye inta aanu kantaroolno aanu haddeerta waxaynayno dalka Soomaaliyeed guud ahaan waa isku mid kolkayna waa ku boorinaynaa inay xuduudaha adkeeyaan oo waxalaala wixii Soomaaliya khatar ku ay ka soo gelayaan ay ilaaliyaan cid kasta oo maamul ama dawlad sheeganaysa oo Soomaaliyeed ayta waa ku boorinaynaa marka faa'iidada wasiir ku jirta arintaas dawladda Puntland shacabka ay ugu jirta maxay tahay illa kantaroolo weeye caafimaadkooda leeyahay weeye in marka qofkan waxa weeye shuruuc dalka lagu soo galo meel la iska soo galo ala booqada maaha waa dawlad madaxweynaha dawladda ka jirto state control security issue science waxa weeye dalka hadaan controlno oo aan xukuumad controlno Soomaaliya inta kale waa lagu soo gudbinaynaa kuwa kale waa lagu boorinaynaa dadku waxa ay ka faseen ama bedelayaan
siyaasadeed ayaan leeyahay kuwa ajaanibta ay hadda ku sugan Puntland wasiir iyaga aan sharciga haysan ka waran maxaa ka qorshaa kuwa lukaas gabawarinta waxyaalaha amniga ayaa eegi doona ciddii dalka fiisa kusoo gashay